الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada Softgate Academy akademiyada laga barto software development-ga iyo sidoo kale IT-da tayada leh anigoo maxamed Abdirsaaq Xasan ayaan idin soo jeedinaya casharkan SQL Server af Soomaaliga ah waxaan ku jirnaa isbuucii labaad casharadii hore haday ku dhaafeen fadlan kala sooco page-keena Facebook aan ku leenahay Softgate Academy SQL Server ayaan kusoo guda jirnay maalintii u dambeysay waxaan soo qaadanay ama muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan ku soo qaadanay waxa la yiraahdo data definition language sida language-ka lagu abuuro ama lagu sameeyo database-ka lagu maamulo oo aan ka soo aragnay create database iyo create table sidoo kale maalmihii xigay waxaan ku soo qaadanay soo aragnay sida insert loo sameeyo maanta marka toos waxaan u gali doonaa DML ama data manipulation language ayaan gali doonaa haduu ilaa yiraahdo data manipulation marka maxaa lagu magacaabaa data manipulation waa commands ama amaro iswata oo loogu talagalay in lagu maamulo xogta waxaa dhahnay database waa meesha xogta ay degan tahay waxaana dhahnay sidoo kale waxaa loo baahan yahay language luqad u dhaxaysa qofka datada raba ama userka iyo database-ka luqad u dhaxaysa oo database-ka maamulaysa luqadda userka uu amarka ku bixinayna fahmaysa loo baahan yahay taasna waa SQL waxay ka dhigan tahay adigoo raba qof Kenyan ah inaad la xiriirto oo aadan garanayn luqadda Swahiliga ah asagana uusan garanayn luqadda Soomaaliga ah marka waa inaa heshiin qof idin dhaxeeya oo luqadda Swahiliga yaqaana luqadda Soomaaliga yaqaana waa in la helaa sidaa darteed marka xiriir waa ku sameey kartaan midaasna SQL serverna waxay la mid tahay taas oo kale ama SQL waxay la mid tahay taas oo kale oo ah dhanka kale waxaa taagan database-kii oo xogtii ku noogu keedsan tahay dhankan waxaa taagan user-kii oo annaga ah oo aan rabno inaan xogtii la macaamilno oo aan rabno xogtii inaan kala soo baxno wax macno leh nalooma suurta gelinaya marka inaan la macaamilno haddii aanan garanaynin wax loo yaqaano SQL haddii aanan garanaynin marka manipulation of data maxaa soo hoosgali kara in datada wax la geliyo wax laga bedelo iyo waxna laga tiro wax laga bedelo wax la geliyo intaasoo dhan intaas waxaa u taagan saddexdan amar insert waxay u taagan tahay adding ama wax ku darid modify waxay u taagan tahay update remove waxay u taagan tahay delete maanta insha Allah waxaan qayb fara badan ka arki doonaa insertiga update-kana wax yar ayaan ka arki doonaa laakiin delete-ka biri ayaan dib u dhiganaynaa iyo update-ka qaybta kale insha Allah DML marka ama data manipulation language maxaa lagu magacaabaa muxuu ogolaadaa userska inay xogta arkaan galaan iyo waxna ka bedelaan muhiimadda la leeyahay hadda sharxayo waxa waaye human interaction inuu la sameey karo systemka in human interaction uu la sameey karo systemka ayaa lagu magacaabaa marka okay waxaan tagaynaa oo sheeg SQL serverka ayaan soo furanaynaa waa ii furan yahay SQL serverka waa ii diyaarsan yahay halka markaan joogno waxaan dhihi jirnay Soomaa new query aan dhahnaa Soomaa halkan markaan joogno waxaan leenahay new query ama dalab cusub ayaan dalbanaynaa marka dalab cusub ama query cusub ayaan dalbanaynaa query-gaas oo rabno marka inaan ku isticmaalno SQL-ka marka query-gaas oo rabno inaan ku isticmaalno SQL-ka maxaa noo sameysnaa database-kii noo sameysnaa videoyadii hore maxaa la oran jiray Softgate database-ka awal noo sameysnaa waxaa la dhihi jiray Softgate maanta waa bedelaynaa si berrito maanta markaan rabo update inaan sameeyo si database-kayga ee ula jaan qaado waxyaabaha aan rabo inaan bedelo oo salary uu ka mid yahay waxyaabaha aan rabo inaan bedelo si ula jaan qaado then waxaan rabaa inaan sameeyo new database cusub database-kaasna aan u bixiyo lagu magacaabo magac business ah ama magac aan ku iraahdo magac business aan rabaa inaan u bixiyo oo leh customer employee iyo products leh intaasaan rabaa inaan sameeyo customer products iyo intaasaan rabaa inaan sameeyo insha Allah okay maxaa marka lagu sameyn jiray wax la yiraahdo maxaa marka lagu sameyn jiray database-ka waxaa lagu sameyn jiray wax la yiraahdo create ayaa lagu sameyn jiray create hadaa isticmaalaysid database-ka waad sameyn kartaa marka create aad leedahay kadib database aad raacine kadibna database name-ka ayaad raacinaysaa okay hortaan weynaysanayaa kadib waxaan leeyahay create ayaan leeyahay create marka waa
amar oo ka tirsan DDL ama data definition language ka tirsan way create ayaan leeyahay farta si weynay waliba si muuqaalka dhow si fiican loogu arko create ayaan leeyahay database hadda marka xogtaan isticmaalayo waa master halkaan ka arki karnaa xogtaan isticmaalayo hadda waa master create database waxaan leeyahay database la sameynayo waxaa la yiraahdaa oo kale bile market ayaa la yiraahdaa database kaan sameynaya kadib waxaan leeyahay execute aan leeyahay execute ayaan taabanaya kadibna database successfully ayuu ii samaysan yahay haddaan rabo inaan database inuu samaysan yahay oo la ii sameeyey aan hubiyana dan meeshaan ka hubinayo hore ayaan u naqaanaa oo object explorer ayaan ka hubinayaa inuu ii samaysan yahay in kale database ayaan kor tagayaa kadib waxaan leeyahay refresh ayaan leeyahay after that waxaan furayaa ii sheeg waxaan furayaa classka ama folderkan ayaan furayaa oo database ku jiro dan waxay soo baxay databases ka samaysan kadibna waxaan u baahanahay bile market inuu ku jiro databaseyada ku keedsan SQL ka noogu jiro inuu ka mid yahay alka haddaan marka sii furo table aan ogaa kara bile market halkan noogu jira haddaan marka sii furo waxyaabahan waxaa la yidhahdaa objects database waa object table waa object view waa object form waa object report waa object intaas oo dhan waa objects okay marka haddaan bile market furo expand ku sameeyo then table-lada ayaan arki karaa table-ladaasna wax ku jiro hadda ma jiraan table hadda ku jiro ma jiraan okay hadda marka waxaan u baahanahay inaan shaqo qabto ayaan u baahanahay shaqo inaan qabto ayaan u baahanahay ujeeda waa noo diyaarsan yihiin laakiin nooma samaysna weli system tables kaliya ayaa noo samaysan laakiin user tables nooma samaysna marka database ka aan sameeyo marka maxaa ku xigo in la isticmaalo ayaa ku xigo waxaan leeyahay use bile market ayaan leeyahay use waxay isticmaashaa bile market isticmaal ayaan leeyahay marka F5 na waa taaban karaa execute na waa dhihi kartaa kadibna bile market ayuu database ku noqonayaa aadkii isticmaali lahayd ayuu noqonayaa marka waxaan u baahanahay inaan sameeyo saddex table kala duwan ayaan u baahanahay inaan sameeyo create table customers ama employee hormari employees create table salary inaan sameeyo create table saddexdaan u baahanahay inaan sameeyo saan ku samayn karaa no saa kuma samayn karo okay highlightkan haddaa saaro execute aan ama shaqeynaa may kaas ma dhamaystirno employees syntaxkaas lama yaqaanaba create table marka waxaa ka dambeeyo la rabaa inaan siiyo fieldskii ama column-yadu ka kooban yahay inaan qiimeeyo ayaan laga rabaa marka waxaan leeyahay create table emd id marka wuxuu ka nooga koobnaan doonaa employee id-ga nooga koobnaan doonaa intiga waa number iska caadi waaye kaadi emd id marka wuxuu noqon doonaa intiga caadiya comma emd name ayaan leeyahay gaarkaan aan leeyahay 30 kadib waxaan u baahanahay emd title ama shaqadu haayo aan dhaho title aan dhaho waa varchar 30 varchar 20 dheh varchar marka waxaa loo isticmaalaa varchar ama varchar waxaa loo isticmaalaa char waa dhihi kartaa laakiin waxaa ka size badan varcharka ayaa ka size badan marka la isticmaalayo SQL inta aad ku keedi kartid ka tira badan yahay okay emd title magaciisa waan qoray titlekiisa waan qoray haddana waxaan u baahanahay keli inaan iraahdo adresskiisa waa char inaan iraahdo 20 ama 15 iraahdo intaas ayaan u baahanahay okay intaan noogu soo koob okay create table marka employees aan noo samaysan create marka waxaan isticmaalaynaa DDL luqadda la yiraahdo DDL ama data definition language ayaan isticmaalaynaa kadib intaan highlight saarayaa kadib waxaan leeyahay F5 ayaan leeyahay execute ayaan leeyahay marka tablekaas wuu ii samaysan yahay waxaan u baahanahay inaan comment saaro waad qoran kartaan waa ujeedaan okay tablekii ugu horeeyay aan sameeyo tablekii ugu horeeyay aan sameeyo arki kartaan marka waxaan saarayaa comment ayaan saarayaa si hadhow uusan ii dhibin ama hadhow uusan u shaqaynin marka comment ayaa la yidhahdaa kan
waa minus haddaan commentigi saaro marka ma shaqeynayo maxay ka dhigan tahay ma rabo inuu ii shaqeeyo koodkan next time marka exclude aan sameynayo okay kadib waxaan u baahanahay marka inaan iraahdo create table salary oo kale haddana inaan sameeyo salaryga marka waxaan u baahanahay dhow mustaqbalka waxaan employee ID-ga ayaan kusoo xireynaa employee ID-ga ayaan halkan kusoo xireynaa marka waxaan u baahanahay inuu ii ahaado maxaa la yidhahdaa EMBID inuu ii ahaado figure inuu ii ahaadaan rabaa okay kadibna salaryga wuxuu yahay maxaan ku yidhahdaa departmentigu ka shaqeeya ninka car ama employee departmentigu ka shaqeeyo iyo salaryga qiimihiisu value qiimo u yahay kaasoo ah money bana marka inaan intaas isagana kusoo koobno isagana waxaan samaysanay table la yidhahdo salary tableka salary wuxuu ka kooban yahay saddexdaas column ka kooban yahay column ugu horeeya waa employee ID waa department waa value marka column kasta waxa u dhaxeeyo comma haddii mar tiraadid then maxay ka dhigan tahay in aad ka gudubtay ay ka dhigan tahay hal column ama hal field inaad ka gudubtay oo u gudubtay field kale ayay ka dhigan tahay then waxaan leeyahay exclude ama F5 aan taabanaya okay software aan ku shaqeynayo waa Microsoft SQL Server okay waxaad kasoo degsan kartaa website-ka Microsoft ayaad kasoo degsan kartaa Microsoft okay marka gaar ahaan waxaan isticmaalayaa 2014 okay kadib marka maxaa yeelay customer-ka wuxuu gataa customer ma meesha noo raacsan employee salary soma okay employee salary kan dhana marka salary waxaan ka product waxaan keen leeyahay hadduu customer jiro soma department aan leeyahay debt ID waa figure debt name waa car 15 sidoo kale waxaa kala jira wax la yidhaahdo debt location waxa la yidhaahdo waa char 15 aan dhaano sidoo kale exclude inaan marka kii hore waa inaan sameynaa comment waa inaan saarnaa oo minus waa inaan saarnaa ama hyphen okay then maxaa u baahanahay marka inaan iraahdo select from employee okay lama yaqaan keywordkaas from waa qalad marka maxaa isticmaalaysaa star shift 8 ayaa leedahay waxaa lagu magacaabaa select star from employee maxaa laakiin loo yaqaana all aa loo akhriyaa star ayay u qoran tahay laakiin all from employee wax kastoo ku jiro ii soo saar ama employees hadduu employees ahaa okay then employees waa ii soo baxay then waxaan u baahanahay sidoo kale inaan yidhaahdo select all from kii kale muxuu ahaa salary select all from department hal mar aan leeyahay saddexda table halkaan ay soo galayaan employees salary iyo department okay ujeedna soo waxa u koreeyo midka ugu horeeyo waa employee oo ah employee ID employee name employee title address iyo midka kale oo ku xig oo salary-ga iyo midka kale ku xig maxaa yeelay salary yaa qaato employee yaa qaato yaa mushaar qaato shaqaalo qof shaqaale mushaar ma qaato macmiil mushaar ma qaataa may yaa department ka shaqeeyo shaqaalo marka insha Allah bilan market kadib waan ku shaqeyn doonaa marka waxaan u baahanahay inaan insert sameeyo casharka maanta aan galayna marka insert maxaa waaye manipulation data manipulation powerpoint ka waa xasuustaan sooma waxaa loogu talagalay in adding uu ku sameeyo DML-ka DML-kana waxaa soo galo 3 command kaliya insert update delete hadday blue noqon wayso waa qalad hadday farta madow noqoto keyword saxan ma ahan update sidoo kale maxaa soo hoosgeli delete saddexdan xabo waaye saddexda ka hadasho DML waxaa loo yaqaanaa saddexdooda waxaa loo yaqaanaa
DML ama data manipulation language waxaa lagu magacaabaa data manipulation language taasoo ah wax ka beddelka xogta ayay shaqo ku leeyihiin marka waxaan leeyahay insert table ugu horeeya ayaan qiimo gelinayaa into employees ayaan leeyahay kadib markaasaan idhaahdo values ayaan leedahay kadibna wax brackets furaysaa marka columnka ugu horeeya hadda wax gelinayso waa inaad la socotaa waa 141 waa 141 shaqaalaha 141 employee name waxaa lagu magacaabaa daahir raage mire ayaa lagu magacaabaa comma then employee title uu noo hayo waxaa waaye waa salesman waaye ninkaas waa salesman adresska uu degan yahayna waa hodan okay kadib waxaan u baahanahay inaan idhaahdo wax kale maa noo dhiman maya waxaan baahanahay F5 inaan idhaahdo ayaan u baahanahay okay hal qof ayaa ii samaysay marka waxaan baahanahay haddana qof kale inaan sameeyo aan idhaahdo insert into employees values aan idhaahdo kadibna 145 okay waxaa la yidhahdaa Israa Cabdulle Cumar ayaa la yidhahdaa gabadha marketing ka shaqeysaa meeshay degan tahayna waa xamar weyne okay tan waxaan u baahanahay marka hadda marka ma dhihi kari waan dhihi karaa laakiin xogta waa isku ekaanay maadaama tableka markuu sidaan noo yahay sida hadda uu noo samaysan yahay waxaa lagu magacaabaa basic table it means waxa waaye waa table aan ku xirnayn wax constraint ah table aan ku xirnayn wax constraint ah haddii mar constraint uu ku xiran yahay basic table ma oo wuxuu noqonaa normal table ama wuxuu noqonaa constraint table oo noqonaa table shaqeynayo laakiin hadda constraint wax noo diidaya inaan xogtan daahir raage mire aan mar kale gelino ma jiro haddii daahir raage mire mar kale aan geli karno tableka aan geli karnana then waxa database ka isticmaalna ma jiro because maxaa yeelay waxyaabaha database-ka la rabo inay ilaaliso waxaa ka mid ah duplicate-ka waagi hore buugaag wax lagu qori jiray buugaagta duplicate ma ilaalinayo magacaad meel kale ku qortay haddaad meel kale ku qortay dan uu ku ogolaanaa laakiin database waxaa laga rabaa inuu kuu soo boodo oo kuu sheego oo ku yidhaahdo magacan oo magac hore marka ma magac cusub aa ka wadaa mise kii hore wax ka bedeli rabtaa taas oo kale ma fahmaysaa marka waxaa baahanahay inaan daahir raage xogtiisa aan tirno then ifraax saa xogteeda aan gelino okay execute saa u dhahno okay then row kale ayaa effect lagu sameeyey qaabkan maahan ee qaab kale ma jira loo samay karo yes waa jira waxaad u samayn kartaa qaabab kala duwan insert u samayn kartaa tusaale markaad halkan joogtid insert kale ma soo celinaysid comma leedahay kadibna qiimaha kale ayaa ku shubaysaa because halkan fiiri value ma ahan values waay qiimaha ta xusuuso waa wadan kartaa macnaha waxaan leeyahay 148 ayaan leeyahay 148 waxaa nagu jiro jaamac cali xirsi ayaa ku jiro magacyada hore soomaalida jaamac cali xirsi ayaa ku jiro jaamac cali xirsi wuxuu ka shaqeeyaa operationska ka shaqeeyaa wuxuuna degan yahay jaamac uu degan yahay kale okay ifraax markaad adaa ku shubnaysaa filaayo ifraaxna ku shubnaa umaleyna saa u hubsanaa waxaan leenahay select star ama all home shift qabo home then waxaan dhigaradaa execute then diary ifraax bay noogu jiraan okay waxaan u baahannahay ifraax inaan meesha ka saarno ifraax magaca ka bedelaynaa waxaan leenahay idil cabdi waxaan leenahay idil cabdi cusmaan waxay ka shaqeysaa marketingka laakiin waxay degan tahay hiliwa okay waxaan baahanahay inaan hal mar isla kiciyo marka maxay sameynaa idil iyo jaamacu tableki ugu daraa employees kadibna uu soo bandhigaa laba amar kala duwan ayaa meesha ku yaala marka okay uu soo bandhigay sooma maxaa noogu jira hadda daahir raage mire salesman waaye laba marketing idil iyo ifraax
jaamac cali iyo operationska ah waxaan kala degan odan ilwaa ayay kala degan okay marka selectiga marka way kala tahay selectiga marka hadda tusaale fiiri select all from hadda yiraahdo table-ka dhinaca soo baxay laakiin haddii lagu yiraahdo ka waran isoo door shaqaalaha magacyadooda iyo xaafadda kala degan yihiin kaliya isoo saar haddii lagu yiraahdo leedahay select all from leedahay select leedahay kadibna env name iyo address ay leedahay from employees kadib marka waxa ku soo baxaya shaqaalaha iyo xaafadaha kaliya mamsa column gooni ayaa dooranaysaa partial retrieve oo kale ayaad samaynaysaa okay waxa lagu yiri kaliya isoo bandhig addresska shaqaalaha ee degan yihiin kaliya isoo bandhiga lagu yiri addresska degan yihiin kaliya waxaad iga reebtaa magaca iga reeb ayaa lagu dhahay okay addresska degan isoo reeb waa kara hadda afar shaqaale kaliya noo shaqeysa anaga laakiin haddii malaayiin shaqaale uu yahay dan malaayiinkaas ama kumankaas shaqaale ayaad soo bandhigaysaa xaaf addressada ay kala degan yihiin hadhow marka waxaad ku samayn kartaa analyzing markii la yiraahdo markii la lahayo data analyzingka ama data visualizationka marka la lahayo waa saan oo kale oo ah marka waxaad samaynaysaa shaqaalaha kuugu badan xagee ka yimaadaan addresskay ka yimaadaan addresskay ka yimaadaan fiirinay shaqaalahaas marka waxaa isku fiirinaya dhow shaqaalaha soo daaha miya mise shaqaalaha soo dhaqsado dan hadhow go'aan decision ayaa lagu qaadan karaa datadaas la soo bandhigay taasoo ah in company-ga uu guuro meel u dhow shaqaalaha oo kale ama xarun kale uu ka furto meeshaas ama department kale laga furo meeshaas okay ama haddii kale haddii lagu yiraahdo waxay isoo bandhigtaa magacyada kaliya dan just column-ka dooranay leedahay emb name isoo bandhig from employees ka soo bandhig okay intaas ayaa ku soo muuqanaya okay laakiin midda kale waxa lagu dhigi karaa iyadoo la isticmaalayo where condition la isticmaalayo ee waxa lagu dhigi karaa isoo bandhig qof gooni ah isoo bandhig ninka ka shaqeeya operationska dadka operations ka shaqeeya isoo bandhig kadib waxaa leedahay select all from employees are leedahay where condition ku xiray marka where env title is equal uu lamid yahay dadka title-kooda uu lamid yahay operationska ay soo baxaan dadka title-kooda operations uu mid yahay ay soo baxaan jaamaca rab marka inuu soo baxo jaamac ali xirsi oo taleex degan ayaa rabaa inuu soo baxo okay waa bedeli karaa waxa dhigi karaa marketing dadka joogo ayaan u baahanahay hadana inaan soo muujiyo ama soo bandhigo ayaan u baahanahay waa marka waa saas oo kale marka selecting marka la sameynayo okay selecting waa aragnay marka qeybalada kala qaabka waxa loogu soo taqaaniin salary-ga soma iyo department-ga waa caadi marka iskuma dhibayna marka salary-ga qaabka la soo bandhigo iskuma dhigay sidoo kale waxa jira waxyaabo lagu magacaabo omitting marka la sameynayo tusaale waxaa jiri karta waxaa jirta omitting marka la sameynayo ama qayb kamid daatada in la jaro tusaale inaan yiraahdo insert inaan yiraahdo into marka waxaan u baahanahay qofkan inaan geliyo magaciisa iyo title-ka bas address inaan ka tago address-ka lama yaqaan inaan ka tagaa rabaa marka hore aan table-ka sameysanayno oo aan leenahay create table marka aan leenahay create table oo column-ka ugu horeeya table name-ka aan sheeganayno employee oo kale marka leenahay column ugu horeeya marka sheegano name aan dhahno waa inaan raacinaa null hadhow marka null magacaas waa laga tagi karaa oo meeting marka la sameynayo ama wax la jarayo laba shardi laga rabaa column-kaas laga tagayo oo xogta aan la gelinaynin waa inuu nullability yahay oo null aqbali karaa labo waa in uu haystaa value default ah tusaale haddaan iraahno ka waran addresska dhammaan addresska u qaado inay dadkan wada degan yihiin oo kale tusaale shaqaaleyn oo yar yihiin hal degmay ka wada yimaadaan oo waa naqaanaa holwadaag oo kale ka yimaadaan shaqaaleyn oo dhan bakaare ka yimaadaan marka waa inaan gelinaa holwadaag automatically default value haddii marka default value uu haysto bakaaro ama holwadaag ama daynile uu haysto ama muqdisho uu haysto dan default value wuxuu noqonaa qiimahaas ma u baahnid inaa mar kale aad gelisid qiimo meeshaas laakiin haddii kale kaama yeelaayo oo uu kaa diidaya tusaale ma iraado insert into employees values maxaa u horeeya hadda ID-ga u horeeya waa ka tagaa oo kale
magacaan gelina leeyahay garaad cali oo kale aan leeyahay titleka waan ka tagayaa adresska ayaan soo dhigayaa kaasoo ah oo degan yahay garowe degan marka error noocay isoo baxaya waa inaan arkaa marka incorrect type near okay okay marka wuxuu leeyahay structure-ka table-kaaga iyo isma lahan waxa aad soo publish garaysay ujeedadu supplied values daarasnama table definition waa structure-ka table-kaaga oo waxaa laga rabaa 4 column inaad ku buuxisid adiga 2 column aad soo bandhigtay dan halkaas qalad ayaa ka jiro ayuu ku leeyahay omitting ayaa la yiraahdaa taas oo kale marka omitting wuxuu ku soo marka hore waa inaad null soo samaysaa column-ka waa inaad ka soo dhigtaan shuruudiisa markaad tiraahdo name varchar 20 null waa inaad siisaa null maxaa waa ever inuu ever aqbali karo okay inserting marka inserting marka waa aragnay waxaan kaloo arkaynaa qaabka loo gelinayo iyo noocyada kala duwan aragnay waxaan arkaynaa marka update ayaan mar arkaynaa from employees update marka laba arkaynaa mid shaqaala oo dhan oo lacagta laga bedelayo iyo mid ii sheeg qof gooni ah xogtiisa la bedelayo tusaale table-kana gacanta ku haysa database admin aad tahay waxaa lagu yiri title-ka daahir raage salesman ka bedel waxa u bedeshaa operations u bedel فهمت جامعة على حسنا operations كبدل salesman وبدل waxaan leeyahay update ayaan leeyahay table ka magaciisa sheega table ma raacinaa markaan update employees aan leeyahay set ayaan leeyahay markaas maxaa waa meesha marka wax la rabo emd title waxaad ka dhigtaa equal oo waxaad ka dhigtaa meeshii ahayd salesman ka ahayd waxaad ka dhigtaa operations ka dhig operations loo soo wareejiyay kan ka dhig where aye halkee marka wax laga dhigaa waxa rabaa dooran kara waxa dhigi kara emd id aan dhigi kara maadaama id ka unique uu yahay 141 oo id isku eg oo saanta noo keedsanay okay maxaad isticmaalay marka select isticmaal retrieve aan sameeyno may update oo ah dml data manipulation language marka waxay yiri update sameey waxa bedeshaa marka employee title-ka waxaad ka dhigtaa operations in lagu soo wareejiyay qaybta shaqooyinka miyaa la wareejinaa 141 ninka 141 haysto employee title-kiisa waxaa laga dhigaa operations waa laga soo wareejinaa salesman marka leeyahay selectigaana oo soo soo dhigaa hay'ale marka hore selectigaas hadii kala soo bandhig maayo kadib baa falka dhaca laakiin hadda falka markuu dhaco kadib baa rabnaa in selectiga la isticmaalo okay marka waxaan arkaynaa hadda laba qof oo operations ayaa meesha noogu jiri doonta daahir raage operations jaamac ali xirsan operations hadda marka hadana waxaan rabnaa inaan bedelno oo u bedelno u bedelno wax la yiraahdo saleska ama qaybta badeecada gadin oo bedelno laakiin waxa bedeleynaa id gaan bedeleynaa 148 ayaan ka dhigaynaa sidoo kale hadana waxaan bedelnay jaamac hadda waxaan ku soo wareejinay sales aan ka dhignay daahirna waxaan ka dhignay operationska awalna shaqooyinka kala duwanayeen tan oo kale waan sameey karnaa waxaan bedeli karnaa addresska waxaan bedeli karnaa id-ga waxaan bedeli karnaa employee name-ka waxyaabahaas oo dhan ayaan bedeli karnaa okay sidoo kale waxaa jirto mar la sameynayo tusaale waxaana geysaa salary-ga oo kale nagey software academy ay login inaan like saarto salary nagey salary hadda marka wax noogu jiro hadda ma jirto employee id waxaan u sameysanaa fila kadib marka hadda waxaan u baahanahay inaan xog ku shubno marka waxaan u baahanahay inaan iraahdo insert into salary values-ka waxaan gelinay waxa ugu koreeyo employee id mo 141 ayaan leeyahay 141 department uu ka shaqeeyo waa operationska waaye department uu ka shaqeeyo value-gu qaatana حواي value قاتنا واسدين بقول iyo $50 $50 أيوة قاتنا
sidoo kale ninka kale aan ku shubaynana waa okay 141 ninka kale aan ku shubayno waa 145 okay 145 isagana wuxuu u shaqeeyaa marketingka 145 marketing waaye marketingka wuxuu qaataa ama waxay qaataa 600 iyo qofka kale aan rabno inaan bedelno waa qofka marketing waa bedelnay operations waa bedelnay sales waa inaan bedelnaa marka saleska ninkii wax gadaayo waayo wuxuu qaataa $1,050 uu qaataa ID-giisana waa 148 okay then intaan u baahnaa inaan sameyno okay then 4 rows ama 3 rows affected inuu dhahaa waa 3 rows affected waa then waa saxaya okay boos waa dhigi kartaa waad qoran kartaa marka okay maxaan u baahnaa marka salary-ga inaan soo saaro ayaan u baahanahay salary-ga inaan soo bandhigo ayaan u baahanahay marka salary-goodu waa kuwan 141 145 148 hadhow shaqaale markuu ku yimaado 141 ayaa tagaysaa ID-ga ii sheegaa leedahay kaliya ama ID-giisa fiirinay hadduu 145 yahay dan $650 siinay uma baahnid inaad magaciisa ogaatid iyo maba u baahnid okay understood dan waxaan u baahannahay hadda marka waxaan u baahannahay in update samayno shaqaaliha waxaa la rabaa sanadkan in lacagta loo kordhiyo update aan isticmaalayna maadaama update uu ku jiro manipulationka update aan leeyahay table name-ku waa salary set waxaan leeyahay value-ga dhan set value-ga waxaad siinaysaa is equal value-ga hadda ay haystaan plus qof kasta $70 ugu dar operationska 141 jaamac waayo u malaynaa wuxuu qaataa hadda $850 $850 todobaatan ku dar $920 inuu istaago ayaa laga rabaa update-ka markaas samey maamulka kore wuxuu ku yiri shaqaale kasta waxaa la rabaa in lagu daro salary-giiskaas department-ka salary-ga marka bisha markuu lacagta bixinayo waxaa la rabaa inuu ku xisaabtamo qaabka salary-ga loo kordhiyo execute then 3 rows affected ayuu ku leeyahay waxaa baahan marka salary-ga inaan soo bandhigo just highlight sar then execute then wajida sama 141 920 720 1,120 markii hore muxuu qaadanay 1,150 samayn 1,150 samayn saafilay okay 1,120 ayuu hadda qaadanaya wasaas oo kale update waan aragnay select oo kala duwan waan aragnay biri ayaan waxa arkaynaa delete biri ayaan arkaynaa insha Allah aduu ilaahay yiraahdo aad ma santiin khayr adirkeena ilmaamin inaad sabtigeeda kadib like saartaan comment ka dhigtaan ay ilmaamin aad ma santiin